السلام عليكم مع الخضاب ولا مقال كان مركز دميستيد ما أودي دونتيد أو كلية إنه قفكي كشلايو إنه أديك كاتجي إنه أديك قصاري بل واحد أودي دونتها إنه كوسو لابتو كوسو حريريو ورجيو إنه مرؤون حرير كيني سيده رأو نقضو إنه مرؤون سيده رأو فرحان wada sheekaysataan kama garan waxa uu noqon doonaa sidii faraanti fartaada ku jira oo kale hadii aad rabtid oo bixinaysaa hadii aad rabtid waad gelinaysaa ugu dambeyntii go'aanka gacantaada ayuu ku jiri doonaa hadii aad dhawanada la kulantay qalbi jab qalbi xanuun qofkii aad ku riyoon jirtay aad markasta ku fakari jirtay idinku nolosha qaybsanaya idinku ubadkiina wada ciyaarsiinaya hadii uu ka tagay qofkaas waad kala harteen laakiin adigu waad jeceshahay waxaad rabtaa inuu ku soo laabto muuqaalkeena maanta wuxuu ka hadlayaa sidee qof ka tagay oo aad rabtid sidii ugu soo celin kartaa inta ka horeysa walaalayaal waxa muhiim ah inaan isku baraarujino arrintan gabar walaalaha kamid ah ayaa statuskeeda waxay soo dhigtay sawirka marka sawir caadi oday buu ahaa marka qoraal baa kor kaga qornaa qoraalka ku qornaa waxa uu ahaa nin waalan ayaa su'aal la weydiiyay waxa loogu dhahay ma jira qof adiga ka waalan waxa uu dhahay ha waa ninka aaminsan buu dhahay in ay gabar kaligiis la sheekaysato ninka aaminsan in gabadhan kaligiis la sheekaysato uu shunkaasado kaas baa aniga waalan buu dhahay aniga horta hadalkaas walaalayaal wadnuhu iga taabtay mid ayaa haboon in la fahmo walaalayaal in aad niman badan aad shukaansatid taasi kama tarjumayso inaad ka dhaxili doontid hal qof aad noloshooda qaybsataan wanaagsan ka farxiya inaad ku dhaqaantid sidii la sheegi jiro ahayd gabar kun bay shukaansata hal bayna kala baxdaa taasi kama tarjumayso inaad qof wanaagsan aad heshid alaabta raqiiska ah customer badan ayay leedahay adiguna saas oo kale walaal ha noqonin gabar ayaa jirta ilaa maalintan bartay ilaa maanta aan fiidiyoga duubayo shukaansi ku jirtaa waxay ku dhowdahay muddo 10 sano ah intaas shukaansi kan ya taasi ku jirtaa sidoo kalena waxa jirta gabadhan maalinta aan baranayay aan iyadana bartay laakiin gabadhan kale weligeed nin ma shukaansan weligeed nin numberkeeda ma aysan weligeed nin meena dhihin macaana iyo xabiibi waxaad gabar aamusan dhowrsan asturan ma sha Allah nimanka aan la hadlin qofka marka uu wanaagsan yahayna dadku dhan way isku sheegaan waxa soo doontay nimanka Muqdisho ugu taajirsan ayaa soo doontay waana loo diiday markii dambana waxa guursaday nin wanaagsan dhalinyaro ah ma sha Allah kaas ayaa soo doontay lagu dareen hadda alxamdulillah nolol qurux badan bay ku nooshahay ubad ayayna haysataa gabadhii kale aan idin sheegay iyadana shukaansiga ku jirtay waqtigaas ilaa hadda iyadoo la shukaansanaya halo way koysa soo garan marka inaad niman badan aad shukaansatid kama ay turjumayso inaad hal nin oo wanaagsan aad ka heli doontid hadii aad yaani Snapchat iyo TikTok aad iska dhexrixid kuwa badanna ay kugu soo darsadaan niman badanna aad shukaansatid iyaduna taas kama ay turjumayso inaad tahay qof wanaagsan oo la jecel yahay kama ay turjumayso runtii bal alaabta tan ugu raqiisan ayaad ka sii raqiisnaan doontaa hadda walaashayday midda muhiimka ayaa ah inaad fahantid inuu guurku yahay risqi Allah subhanahu wa ta'ala oo bixiyo هذا برزق ربي سبحانه وتعالى وبحي إن كن لا شكان صدق الله ومهلا واحد لقاه لا بريء إنا أسوق حرنتاي سيد زوج وناكسن أبو بشيد أوكي تاسوان فهني متكلا أي جرت أيضنا وأي هبان صحيح ولا لأن يسكب برارجنو دعنو كل ما شكان صدق حلقة في أيام شكان صدق حلقة في أيام سلاش كيسنا حلقة في أيام جعل هاي حلقة في أي قلبي جعلي هاي كاس أيام هبا إن النورش قيب سنة هدو قف كاس وشلو waxaad isku daydaa inaad xiriirkiina ka ilaalisid wax Rabbi subhanahu wa ta'ala cala gelinaya Rabbi subhanahu wa ta'ala oo raali ka ahayn hadal khaldan sawir khaldan kulama khaldan yani inaad iska ilaalisid ba inuu idin soo dhaxgalo shaydaan maxaa yeelay hore waxaan kuugu sheegay inuu guurka yahay risqi uu eebabixiyo subhanahu wa ta'ala qofkan hadaad rabtid ba inaad nolosha qaybsataan inaad rabtid in qofkan uu noqdo aabaha ubadkaaga ama aad rabtid inay qoftaan ay noqoto hooyada ubadkaaga waxaad isku daydaa inaad bal xiriirkiina aad ka taxadarsid ka ilaalisid been xumaan iyo wax kasta khaldan
سو ورب سبحانه وتعالى على فسكونكين درو هدونا نول قرحون أدوغو نولاتان تصال أهان waxaa jirto walaalayaal alaab aan kaligay hayo ani kaliya haya adigana wad u baahan tahay okay waad ii timaaday way soo tuuriyeysay waad icaysay waad aflagaadeysay inaan ku siiyaan iga rabtaa ma dhacaysaa وهميا دي قول رب سبحانه وتعالى قعنتي سألو كجراي مركا وإنا ودونا أكسن أن أمرنا هل كان أن بوسكو قبلنا أن أولابنا موضوعنا بلوغيسي وحان كهل ليني سيدي قف كاتغي وات جعشهاي قف كان وحو أها ميد مركي أد هبينك أد سيحاني سيد قفكو قدام بيو أد كفكرت أيوها مركا تصبحي سوكا عيسينا قفكو قهري أد كفكرت أيوها مركا سنوحا قوسا ورنا يدينكو أبتكين وضعيار سينيا markastana waxa ku sawirnaa idinku nolol farxad wada qaybsanaya laakiin qiimaha uu garan waayay ama khalad ba idin soo dhaxgalay waa una kaatib waa una ku ciiday laakiin adigu waa jeceshahay waxaana rabtaa inaad dib u soo celisid oo kugu salaabto xiriirkiina sida hore uu noqdaysa ka qurux badanba aad u dhow nolosha qaybsataan aad isahnataan baad rabtaa walaal horta qofka markuu ka tagay qalbiga ka dhaawacayo uu noloshaada uu ka baxayo waxa uu sugayaa inuu arko murugtaada ama adigoo soo xiriirinaya dhahaya gacay sidaas ka daa aan sideen hore isku noqonaya wuxuu rabaa adigoo bariyaya inuu arko oo rajeynaya mar inuu ku soo laabto yaani adoo rajeynaya inuu ku arko ayuu rabaa haddaba waxa ugu haboon inaad samaysid ayaa ah midaas cagsigeeda waa in qofkan markuu uu ka tago aad tustaa in ka tagitaanka uu ka tagay ay ahayd wanaag uu ku sameeyay waa inaad tustaa wixii ugu quruxda badnaa ee aad noloshaada aad hesho inuu ahaa inuu qofkan ka tago oo noloshaada uu ka baxo waa inaad dadka tustaa in hebelka tagitaankiisi ay ku ahayd farxadda bilowgeeda kadib asagu waxa uu dareemi doonaa la shay inuu waxba ahaanba wuxuu ka sugay inaad murugootido dhadho ku jeclaa ya markuu arko qofkii oo daneehiisa raacday aan u soo jeedin aan burgoon farxad ba ka qaadayba yaani tagitaankiisa farxad ka dhaxlay asagu wuxuu dareemayaa la shay inuu waxba ahayn eber uu yahay marka waa inaad shidaa bantoonka maseerkiisa yaani maseerkiisa marka aan kula yahay shay ma ahan inaad niman kala xiriir leeyahay wax iskama wado bal yaani waa inaad adigu tustaa farxadaada inaad faraxsan tahay inta taas qoos abko kale haduu kala socday maaragtay meel uu ka arkayo farxad uu ku buux waxyaabo yaani wax jacayl iyo murugo ku saabsanba ha soo dhiginba soo garan markaas yaani waqtigaas qofkaas uu ka maqan yahay waxaad isku dayda inaad ku mashquulshid naftaada waxyaabo badan waxa jiray waxyaabo badan oo aad rabtay inaad samaysid qofkan waqtiga aad siin jirtay waxa isku dayda inaad ku buuxsatid waxyaabihi aad jeclayd inaad samaysid mar waxaad jeclayd inaad quraanka xifdisid isku day inaad rabbi subhanahu wa ta'ala hadalkiisa aad ku mashquulshid aad quraanka xifdisid aad qofkan iyo afaariis ma banaankiisa ku turtid waa tusaale ahaan waxaad ahayd ardayad ayaad ahayd waa inaad waxbarashada ku mashquulshid xoog aad saartid neertin baad baranaysaa inaad neertin ku mashquulshid qalliin baad baranaysaa inaad qalliinki maanta dhan wax qalliin ku saabsan la isku mashquulisid يعني إن النفط هذا هرمريسيد واحد تعيشها إن هذا خرستيد بوجاكته هرمرينت النفط إن يعني تنمية البشرية إن تكون مش كوشيد مركو قف كأرك أديكون أباهنين أديكون ضناها جرها عضي أديكون فرحات كتيرة أديكون واحد الله نقول قف يعني قف مال سرتشوجا يا سيد أول كأرك معنا سكدون بكأرك يا وحقونا الخجينية إنه يعني مرء مكسور حريريو نولشيني سيده هراء النقطة يعني لغاية أنت فرحات الجليسيد وتكلم قف فرحسن إن مرء يعني نفط هذا كوجود هذا إلا جودها تكبر جلسة هذا جودها حنون بعد كده مثلا بناك ضدك بعض حط صيص أنا فرحسن تاي لكن قفك يعني قلبي قاعد ما بكاتري يا مركب جودها حنون تكدر مثلا وارن لكن حنون كاس أدو جودها جون بكوكو بينهم بناك فرحتها لقى أركو أوكي نفط هذا حرقة بينه كل هذا ما أنت مثلا أنت سلام أدير وانكوحي سيدة حالة ديسكوريس ما هي أصاب صوص سلامي دونا أصاب كله دونا وانكوحي سي أصاب كله دونا حالة كورن أصاب كله دونا يعني سيد النهر هذا نقول كورن إيه محايا لي أكتيس واحد كان قاني سقف أنا جاري كريم عقليات دينا رجع سأشقيس أيام سيد عقلي وجار صلاح فيديو هذا كورن مسوي يعني محانو عيرسنا متقنا waxa aanu gaari karin Soomaal garan markaas yani adigu aad naftaada ku mashquulshido meel sare aad gaarsiisido qof faraxsan aad noqotid aan waxba ka maqneen asagu wuxuu rajeen doonaa inuu noloshaada ku soo biiro qayb noloshaada kamid ah uu noqdo haduu ahaa qofkaas de qof ku jecel
oo yani wax dareen ku haya oo ku soo raadin hadii kalena dii awal qof kan aduu ba iska dhaadhiciyay inuu ku jecel yahay kuma jeclaan intaas muddadaas as mashquulinta ku jirtina yani waad ka gudbi doontaa marxaladaas qalbi jabka ah horay ayaa nooga socon doontaa markasta waxaad isku daydaa inaad naftaada mashquulisid oo aad firaaqada iska yareysid walaalkaygiiyo adiga waxaan Rabbi subhanahu wa ta'ala kaaga bariyaa xaas wanaagsan qurux badan dabeecad qurux badan leh dhaqan qurux badan leh iyadoo dhumada qurux badan ya soo gar aamin leh adigan walaashaday zawj wanaagsan in libacsa ka taabta wanaag oo dhan kulansaday keena ah ubad wanaagsan oo ma sha Allah baariyaal ah oo indhahaaga ay ku doogsadaan videogan waxyaabahan ku sheegnay koow wuxuu ahaa in hadii aad niman badan shukaasatid inay ka tarjumeen inaad zawj wanaagsan helaysid bal ay ku baahan tahay inaad Rabbi subhanahu wa ta'ala ku xirnaatid Allah subhanahu wa ta'ala aad barisid maxaa yeelay asaga gacantiisa ku jiraan soo ma gara midda labaadan ka hadlayna waxay ahayd in hadii aad hal qof kaliya wada sheekaysataan oo aad dhahday aad ka maarmi weydid barrag oo dhan baqadkooda inaad dhahdid hawad u saartay illa qofku soo doonay ma ahane hadii aad qof shukaasatid boo yani wiil dhan yaraayo hadda yani asagana si diyaariyo aad rabtaan inaad nolol qaybsataan oo kale qofkaas ina xiriirkiina ka fogeysid xumaan oo dhan ya hada la khaldan erey khaldan qoraal khaldan sawir khaldan video call khaldan waxaas oo dhan inaad ka fogeysid yani inaad is ilaalisaan si aad hodho nolol qurux badan u qaybsataan saddexadan ka hadlayna waxay qofkan haduu ka tago ku cilayo qiimahaagi uu garan waayay in aadan marna aad ka codsan inuu dib kugu soo laabto bal aad dareensiisaa in ka tegitaankiisa aad farxad ka qaaday nolol qurux badan ay ku bilaawatay aad isbedeshay qof kalena aad noqotay Soomaal garan okay wax ma ka faa'iiday videoga walaal commentiga noogu soo qor sidoo kale video nooca oo kala ah ayaan jeceshahay inaan soo sameeyo commentiga noogu soo qor sidoo kale ma kan wax kale Assalamu alaykum